ciidamada booliiska dalka Hindiya ayaa xabsiga dhigay 2 nin oo lagu tuhmayo in ay dileen nin u dhashay dalkaasi sidoo kalena kufsi u geysteen 2 habeen ah oo u dhashay Israa'iil kuwa oo dalxiis u tagay qaybo ka mid ah dalka Hindiya. habeenkan dalxiisayaasha ah iyo nin la socday ayaa ku sugnaa harada magaalada Hampi Karnataka ee dalka Hindiya markii ay soo weerareen rag hubeysan kuwa oo ninka dil u geystay halka labada gabdhoodna kufsi u geystay. weerarkan ay geysteen ragga hubeysan ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka badbaadeen 2 nin oo ka mid ah Mareykanka ama kuwa Mareykanka u dhashay waxaana la helay meedka ninka Hindiga ah ee ay dileen ragga hubeysan oo wali heebtooda la garanaynin ama wala shaacin. saraakiisha booliiska Hindiya ayaa xaqiijiyay in dhacdadan loo soo qabtay 2 nin oo la tuhmayo waxa ayna booliisku xuseen in baaritaan ay ku wadaan raggan la soo qabtay waxayna sheegeen in baaritaanka kadib ay faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen. dalka Hindiya dadka dalxiiska u taga mararka qaar waxa ay la kulmaan weeraro uga yimaada kooxo burcad ah kuwa oo mararka qaar habeenka kufsi u geysta waxaana ayna booliiska Hindiya markasta ay ku dadaalaan sidii ay u ilaalin lahaayeen amniga goobaha dalxiiska oo dhaqaalo fara badani uu ka soo xarado.